qisadan waxaa wariyay imaam dahabi kitaabkiisa al-kabaa'ir ayuuna ku wariyay waxayna u dhaxaysaa sida tan haweeney maskiin ah oo ninkeedii ka dhintay ugana dhintay laba gabdhood oo agoon ah waxay waayeen waxay guriga kiriga isaga bixiyaan iyo caruurta siiso ninkii guriga lahaa ayaa yiraahday ii baneeya guriga haweeneydii iyo caruurteedii way iska soo haajireen magaaladii oo waxay imaadeen magaalo kale caruurtii ayay waxay geysay meel masaajid ah deerkiisii ayadana waxay u raasay habeenkaas wax ay ku casheeyaan waxa ay la kulantay sheekii magaalada sheekii u weynaa waxay u sheegatay dhibka ay soo martay ee gabdhaha agoonta ay wadato iyo rafaadkeesto sheekii ayaa wuxuu ku yiraahday warkan aad sheegaysid waxa u keensataa cadeen anigu ma khubarka sheegaysa dad cadeen haysan oo ka dhaqaajiyay gabadhii oo niyad jaban ayaa hore u sii socotay waxa ay la kulantay nin kale ninkaas oo nasaari ah oo kristaan ah waxay u sheegtay rafaadkii iyo dibkii soo qabsaday iyo sheekhi waxay kala kulantay ninkii waa oo waday oo waxa uu geeyay gurigiisii oo dhar aad u wanaagsan ayuu gabdhihii siiyay casho fiican oo uu siiyay sheekhi sidii caadadiisa sidii sheekhi ayaa habeenkii saxday waaba ayadii oo maalintii qiyaamo la joogo waxa uu arkay guri aad u qurux badan oo luulka iyo jawhar iyo diamond lagu sharxay wuxuuna arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu weydiiyay yaa rasuulallah gurigan yaa iska leh nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u jawaabay waxa iska leh gurigan nin muslim ah oo muwaxid ah ninkii sheekhi ayaa wuxuu yiraahday yaa rasuulallah aniga waa nin muslim ayaa ahay muwaxidna waan ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yiraahday cadeenkeen sidii haweeneydii maskiinkeeda cadeenta ugu tirtay sheekhi oo qaracsan ayaa hurdadii ka soo kacay subaxdiina waxa uu raadiyay haweeneydii iyo caruurteedii waxaana loo sheegay ninkii nasaariga ah oo kristaanka ah gurigiisa inay joogto wuxuu u imaaday ninkii wuxuu yiraahday kunkan diinaar hoo gabadhii iyo caruurteedii aad xalay soo wadayna igu soo wareejiyay ninkii ayaa wuxuu ugu jawaabay maya waxaad adiga doonaysid baa aniga waan doonayaa xalay waxa soo arkayna waa soo arkay qasriga soo aragtayna waa soo arkay anigana xalay wuxuu ilaahay ugu islaamiyay gabadhan ani ehelkayga barakada ilaahay ugu islaamiyay waxaana la kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday gabadhii iyo labada caruur guriga ma joogaan anna waxaan ku jawaabay ha nabiga wuxuu yiraahday gurigan iyo wixii ku jiraba adiga ayaa iska leh wuxuu yiraahday xadiiska soo akhriyay wuxuu ahaa qof mu'min ah kurbadiisa fiido ilaahay kurbadiisa adduunyo ayaa aakhira waa fiida ninkii qof muslim farxad galiyana oo farxad galiya qofkii qof muslim kurbadiisa qaadana kurbad adduunyo iyo aakhira ka qaada sheekhi aad u shallaysan ayaa wuxuu yiraahday bal maxaan u qaabili waayay loo haday rabto been ha sheegtee maanta qasaaradan imaysan gaari lahayn مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر